wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland inay tahay in ay ka go'do xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment, and we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary, and that you cannot and Somalia will not tolerate to encourage secessionism or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for. And we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders. wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland inay tahay in ay ka go'do xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment, and we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary, and that you cannot and Somalia will not tolerate to encourage secessionism or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for.
and we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders. wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland inay tahay in ay ka go'do xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment, and we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary that you cannot and Somalia will not tolerate to encourage secessionism or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for. And we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders. wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland inay tahay in ay ka go'do xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment, and we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary that you cannot and Somalia will not tolerate to encourage secessionism
or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for. And we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders. wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin. waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland ay tahay in ay ka goodo xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso. Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland. Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment. And we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary that you cannot and Somalia will not tolerate to encourage secessionism or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for. And we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders. wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena wasiirka cadaaladda Xasan Macalin waxa uu sheegay in haatan Soomaaliya aysan diyaar u ahayn kala go sidoo kalena cid gooni u goosad la dhaho oo Soomaaliland ama aqoonsi wax la dhaho oo jiraysan jirin. waxa uu kale sheegay in gooni u goosad Soomaaliland iyo sidoo kale ictiraafka ay tahay wax riyo oo aan sal iyo raatoona lahayn sidoo kalena aan weligeed suurtagelaynin iyadoo ay ka gacdo sidoo kale aqoonsiga Soomaaliland in ay tahay hadii ay doonayso aqoonsi Soomaaliland ay tahay in ay ka goodo xukuumadda Muqdisho ama guud ahaanba afti loo qaado shacabka Soomaali weyn sidoo kalena ay go'aamiyaan talada in Soomaaliland ay la sii joogayso iyo in ay ka go'ayso. Xasan Macalin ayaa ka hadlay arrimaha aqoonsiga Soomaaliland iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday sidoo kalena waxa uu cambaareen dusha kaga tuuray dhammaanba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in aysan har u jiideynin Soomaaliland. Xasan Macalin oo arrimahan ka hadlaya wax yar ila daawadayaal. It came to our attention, sadly to say this, that some of those provisions and protocols were violated, and we had a credible information. Some of them are still classified, so we cannot disclose them at this particular moment. And we still maintain and hope to maintain the diplomatic relations we have with the United Arab
Emirates. I hope this sends the signal and the message necessary that you cannot, and Somalia will not tolerate to encourage secessionism or to deal with the subnational entities as they are not part of Somalia. We want our sovereignty to be respected, and that's not a tall order, and that's what we are asking for. And we hope the UAE will stop and desist from interfering in our internal affairs and respect our international borders.